beeralayda ku nool gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka cabanay cayayaan ka dhashay ayaxii horay u maray deegaano gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka doonsilaxle ee hoostaga degmada Wallaweyn kaasi oo loo yaqaano Koronkoro wuxuuna burburiyay deegaanka dhuldaaqsinka ah iyo beeraha ku yaala deegaanadaasi. Deegaanadan ayaa waxa horay u soo maray ayax fara badan oo ku habsaday dhul beereed aad u baaxad weyn iyo deegaanka dhuldaaqsinka ah wuxuuna saameyn ku yeeshay nolosha dadka deegaanka. Malaaq Cabdullaahi Saleebaan Cumar oo kamid ah dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanadaasi ayaa ka hadlay saameynta cayayaanka ka dhashay ayaxii horay u soo maray deegaanadaasi iyo dhibaatooyinka ku hayo bulshada ku nool halkaasi. وعلى اللي يابني تفي أنا بيره ودقي أبينك وكبريا جيدي أبرو كدقي باري أبرو واي وهي جيدة هوستودا هاي وطلقي بيره أبرو كدقي دبات ملتو سنة دباتو نقسم باري وبالكيرجر هاي أيو كسو آذي وأنا تربدني هاي بيرك فقتنا واجران ميل oo ka guuray abeenkii ma barinin laakiin meesha ku bariyo si aan meesha abar uga dhigay ayna ayaha hadna abar ka dhigay qaarna fatahaada galay qaarna ayaha abar dhigay marka insha Allah taala dhibaatadaas aan haysata hadanahay reer Wallaweyn degmada Wallaweyn tuulooyinka oo simaada hadaan ka soo jeedno waxaan ku sheegaa dhibaato fara badan aan ugu hayo ayahaas iyo fatahaadaas iyo wabiga